نسوق جاري وفدي وهجامينايو تليا حوج ذلك الصوماليات iyo wafdigiisa waxaan ku soo dhaweynay international airport Shatigud Baydoa waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno taliya xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wafdigiisa iyagoo u yimid kormeer shaqo qaybta lixdamaad waxaan aaminsanahay in uu la kulmi doono ciidan diyaarsan tababaran isla markaasna aan rajaynayo inuu dhiirigelin u sameyn doono ciidamadaas muddada dheer la soo tababaray oo ay tahay xafladooda bari insha Allah waxaan aad iyo aad u mahadsantihiin aad baan idin salaamaya guud ahaan taliyaha qaybta abanduulaha qaybta iyo guud ahaan saraakiisha kale safarkeena maantay ma doonayo inaan hadda wax dheer ka dhaho runtii wuxuu ku saabsanay kormeer aan ku imaanaynay qaybta lixdanaad oo qaadan doona waqti kooban oo aan ugu talagalnay hadii Ilaahay yiraahdo iyo ka qaybgalka ciidamo in muddo halkan oo tababar uga socday oo aan rajaynayno waqtiyada soo socda in ay dhici doonto gabagabadii tababarkooda hadii Ilaahay ogolaado marka guud ahaan safaradaani aan qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan ku tageynay qayb kamid ah way marka insha Allah ta'ala waa wixii kale nagadalan iskala socdoona aad iyo aad u mahadsantiin adeer ma ahan gobolka Shabeellaha Hoose kaliya guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida la socotaba gobolada dalka meelo kala duwan oo howlgal ka wadiya howlgalladaasuna boqolkiiba 90 waxaan dhihi karnaa si guul ah ayay ku dhamaadeen ama ku socdaanba kuwa kamid ah waxaan rajaynaa insha Allah ta'ala howlgalladaas inay sii socon doonaan waxyaabaha aan rajaynayna waa nimankan ummadda Soomaaliyeed u diiday nabadii iyo noloshii u diiday in ay sheegay laga dulqaado ummadda si qof walba Soomaaliyeed ay gurigeeda ay nabad ugu noolaato ay sheegay beerahoodana ay ugu tabcadaan si xur ah ay ugu tabcadaan marka dabcan waxaan isleeyahay waa Shabeellaha Hoose kuwa ka socda guud ahaan gobolada